السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروات شانك AJ iyo Fatna maanta waxaan idin wadaa sheeko kale ama qiso kale. maanta videoga wuxuu ku saabsan yahay maxay gabadh nin doonaysa inay intay disho ay xoolihiisa dhan la wada wareegto. sheekada waxaan ku leeyahay wax weeyaan sheeko cajiib ah 10 sano ka hor bay ka dhacday Mareykanka. inta badan qisooyinka badan la yaabo maaragtay waxay ka dhacaan Mareykanka dadka Mareykanka jooga waa og waxyaabo badan oo Yurub ka dhacay Mareykanka ka dhaca inuu videogan inuu bilaabo wuxuu sheekadan waxa ku socotaa gabadh la yiraahdo Dahlia oo damacday inay ninkeeda ka takhalusto. marka Dahlia sida ninkan ay guursatay waliba si ku baratay. so Dahlia iyo Michael way isguursadeen laakiin intii ay isguursan maxaa horta markii hore dhacay. Michael horta markii hore xaas hor u haystay is qabeen xaaskiisa marka kulay wax baa jiray wuxuu damcay inuu dumar kale uu doonto oo online internetka uu galo. ninkii wuxuu markiiba gabadh buu helay. marka gabadh maaha uu isleeyahay maaragtay mustaqbal iyo waxa ka sugayo wax weeyaan waa dumar jirkooda maaragtay ka ganacsada oo waqti kula qaadanaya hadii aad tahay nimanka ganacsadaha ee maartay marba dal u duula. marka waxa la yiraahdaa escort baa la yiraahdaa waxaas Ingiriis baa lagu yiraahdaa. marka dumarkaas meelaha ay website-yadooda soo galay wuxuu doonayay marka gabadh uu waqti la qaato waxaas waqti ama 3 weekend oo kale 2 cisho 3 cisho meelahaas buu doonayay. inantii marka isla markii uu soo jawaabtay gabadh buu ka helay. marka gabadhan uu ka heli doono ay isla kulmi doonaan waxa la yiraahdaa Dahlia Maxamed. Dahlia Maxamed isla markiiba uu soo jawaabtay waxay tiri okay waan isla kulanaa way isla kulmeen. marka wili Michael xaas buu leeyahay wili xaaskiisa ma kala tagin kulli wax baa jira laakiin waad arki doontaa waa la socon doontaan wax say xudhici doonaan. gabadhii markuu isbarteen waxay ahayd marka waqti gaaban inay ay isla joogaan waxa loo too ay midba dhinaciisa ka dhaqaaqo u dhaqaaqo. ninkii Michael wuxuu sameeyay inantii buu jeclaaday waxa ku wax jacayl buu qaadayba wuxuu iska dhaadhiciyay gabadhan inay tahay gabadhii noloshiisa bedeli doonto oo inankii dhamaa waxaan ku gabadhii dhamaa buu jeclaadayba oo wuxuu doonayaa inuu nolosheeda iyo nolosheeda ay isku meel maaragtay ay wada degaan oo ay nolol isla qaybsadaan. ninkii dhamaa wuxuu sameeyay islamaan 5 cisho ka bacdi wuxuu ka dalbaday xaaskiisii inay kala tagaan. xaaskiisii dhamaa hadda intay isqabeen ma garanayo laakiin ninkii wuxuu yiri gabadh yahay kuma rabo dhabarkay tus dhaqaaq. gabadh dhameed waraaqii buu soo bandhigay divorce buu dalbaday way kala tageen. markay kala tageen Mareykanka iyo meelaha Yurub iyo waxayaan inaga samaartay haduu ninku ku yiraahdo 3 jeer waan ku furay dawad furanta wax cadeyn maartay la rabo maaha laakiin meelaha dalalka Mareykanka iyo meesha anagu joogno Yurub waa inaad maxkamadda tagtid oo maxkamaddu marka waraaqo marmar waqti dheer bay qaadataa. marka waraaqihii waa ninkan maalintii sida loo dhiibay oo la yiri khalaas xaaskaaga iyo adiguba waad kala furantiin oo finalize laga dhigay. waraaqihii la soo siiyay 5 cisho ka bacdi gabadhii buu guursaday waa tan kale uu marka website-ka ka bartay. marka gabadhani ma aha gabadh maxay ahaydee sidoo u malaynayo noqon doonta waa mid mucjiso ah ku soo socoto noloshiisa gabigiisa maartay xaq absaadan ka dhigi doonta. marka gabadhii markuu saa u guursaday waxay ogaatay ninkan in uu ahaa mid maxay ahaydee oo baxdada inuu ahaa criminal oo dadka soo gudci jiray conman wala yiraahdaa oo wax maartay forgery sameyn jiray saas wax ku heli jiray. marka ninkan xabsigu mar hore galay laakiin waa la soo daayay waxa lagu xukumay 5 sano wax saas ah ba probation maartay 5 sano dusha laga ilaaliyo oo booliiska maartay uu ku xiran yahay waxyaabo badan ikhtiyaar ma haysatid dal prison kuma jirtid jail kuma jirtid laakiin ikhtiyaar ma haysatid waxyaabo badan ba iga halnooda si fiican ma fahamsin kare laakiin ninkani wuxuu ku jiray lista oo uu yahay qof ma hadda iska caadi free oo iska inoo kala wax weeyaan waa nin dambiile oo kale abu ahaa. wixii bay soo ogaatay waxay samaysay haddii marka qofkaas markuu dambiile yahay oo probation waxaas uu ku dhex jiro waxa weeyaan khaladka ugu yar uu sameeyo
may noqoto maca gaari hadduu khaladmeeyey wadada isagoo wadayo isla markiiba ninkaasi jeelku ku noqonaya. marka waxa weeyaa marka okay dambiili baa tahay laakiin waan kusii deynaynaa, laakiin wax dhibaato ah ummadda iyo inaad sharciga jabisid maaha. ninkaas markaa waynu is ilaaliyo. marka 5 sano buu ku jiray sheekadaas. 5 sanadii markaa may dhamaan markuu naagtan guursanayo Dahlia markay ogaatay ninkii da is qabaan, marka waad ogtahay markaad ninka ay naagta markay is guursadaan xoolihiisii qofkan dhan ay shaqada maartay baratay xoolihiisii bay bar yeelanaysaa haddii maartay uu de ama dhinto ama oo ay kala tagaan xoolihiisii waxbay ku yeelanaysaa. marka waxay damacday inay ninkii jeelka ku celiso. waxay samaysay drugs bay meel ugu qarisay. waa la helay, booliiskii baa xidhay, waa la wareystay ninkii. waxaan ku yidhi barartay maya ma dhici karto, weliba meesha maarta lagu qariya anoo kale saa uma qarsadeen. koley way dareemeen inuu ninkan is ilaalinayay, laakiin haddana dee daroogadii baa lagu qabtay. waxaa la yidhi khalaas waxaad dambiilaad noqotay, haddana xabsigeed ku noqonaysaa. ninkii marka anyway booliiskii maaragtay de wuxuu ka dhaadhiciyay inayna suurtagelin waxaasoo kale oo saqajaanimo ah nolosheeda. hadda qof kale aan guursaday, jacayl kale aan haystaa, waxaan oo kale kuma saqajaabeen, maxaa nolosheeda u burburinayaa, waxaan darooga yar mana isticmaalo mana iibiyo. anyway ilaahay markii booliiskii way rumaysteen. waxay ku yidhaahdeen okay waxaan waan iska ilaaweynaa, laakiin shaki baa haddana weli ku jiray. laakiin anyway alaa kulli xaal ninkii waa lasii daayay, booliiskii way rumaysteen, noloshiis ku noqday. marka naagtii markay aragtay inay tan u socon weyday, nin hore ay la socon jirtay, ilaahay markii isagana la yidhahdo Maxamed bay telefoon u dirtay. mid hore nin hore ay wax ka dhexeeyay iyagoo ay sheekaysan jireen. kii bay ula hadashay markaas waxay ku tiri waxaan doonayaa inaad qof ii heshid ninkayga ka takhalusa, ninkayga dila si aan xoolihiisa oo dhan de aniga oo iga dhinto, aniga aan noqdo maxay ahayd tii de miskiinadii ninkii hadda ay guursatay u ka dhintay oo kale. riwaayad bay markaas wuxuu dhan adduunyo bay isu keenaysaa. marka wiilkii wuxuu sameeyey, ninkii Maxamedka wuxuu sameeyey isla markiiba yes iyo no kuma odhan. okay wuu yiri, hadalkiiba ka guray, wuu ka tegay. isla markiiba wuxuu tegay booliiskii wuu tegay. hadda ogaada no iyo kumiyad waalantahay iyo naasidan iyo miyaa hadda booliiska ku keenay waxaas ma odhan. caqligiisa maaragta wuu isticmaalay. ayar wuu istaajiyey. wuxuu yidhi okay waa ka fikri doonaa. wuxuu sameeyey toos buu booliiska u tegay. meeshii saldhigii booliisku tegay. wuxuu yidhi gabadh aan sheekaysan jiray wax naga dhexeeyey oo hadda nin kala qabo ba waxay aniga way la soo xidhiidhay. waxay tiri ninkaygaan doonayaa inaan dilo, markaa qof ii keen waxa la yidhahdo hitman. ninkayga si maaragtay reer magaalade ii keen waan ka takhalusayaa, saas lacagna waan siinayaa. hay booliiskii wuu tegay. booliiska waxay ku yidhahdeen sheekadaad aad noo sheegaysid anagu dee saas kama qaadan karee, energy iyo lacag iyo shaqo iyo qof maaragtay hadalkii iska socda oo noo sheegay waxaan anagu dad maaragtay aan weli aan ogeyn dee waqti ma gelinayne wax caddayna noo keeno. marka waxay keeneen plan bay keeneen. waxay ku yidhahdeen haddii ay sheekadan ay dhab tahay waxaad samaysaa gabadha dib ula xiriir. waxaad ku tiraahdaa qof baan ku helay, laakiin waa inaad lacag hore aad hore u siisid. gabadhii dibuu Dahlia la yidhahdaa dib ula hadlay. Dahlia wuxuu ku yidhi meeshaas isku aragno, ana war baan ku hayaaye. waxay sameeyeen markaa booliiska waxay sameeyeen gaadhigii markaa uu inankan wato Maxamed wato, xagga dambe waxay ku xireen kamarado yaryar iyo codka duubaya, wax oo dhan wada duubaya ilaa sidii u ogaadaan. Maxamed inantii buu la ballamay, gaadhigii way soo gashay. wuxuu ku yidhi markaa maxaad doonaysaa bal ii sheeg, saad doonaysaa inaan qofka maaragtay qofka saad doonaysaa inaan u dilno oo ama waxa plaankaaga waa maxay, qorshaha aad wadaa waa maxay. waxay tiri aniga waxaan doonayaa in si aan anigu maaragtay shaqo aanan ku lahayn oo kale waa in ninka laga takhalusaa oo xabad lagu dhuftaa. markaa waxay ka dalbatay waxay tiri arbacada wuxuu tegi doonaa
bangigu tagayaa marka waxaan doonayaa si meel public aba in lagu toogto oo dee siyada aan raadkeeda maaragtay loo soo helin marka maxamed wuxuu ku yidhi shaki mayna dhici karin xagga hooyadii iyo familigeeda hadhow adiga meel lagu soo daba raaci karin waxay tii no soo dhacdaa anigu naayo qofna aniga ma shakeeyo marka waxaa samaysaa qof ii hel hadda waxaa sidaa $12,000 baa sidaa kaasha intaas hadda kusii siinayaa inta kalena hadhowta markuu dhinto baan $12,000 baan hadhowtana ku siinayaa hay maxamed كل ده مسكحتي سو حكو جرب إسليه خلاص ده تنو هذا زنطادي بيجولي سوا نينكي قاعدي وحيو لأن حتى أوجادا كمرة بقطع وحيو لأن ودوبين يدو حد لسه عد كيدي وش كيدي وحكست ولا أركا وحنور لأن هدوتو يد ووحي حير لها ووحي شركة هدو تقلنا هاي يدا محمد لعكتي وقعتي إسلامركي وحلا سو هذا بوليسكي وحيران هاي ميكا دكتي مسؤولها ويدكتي حتى مركا لعكتي نهدا يسس لعكتي وكسيسا بوليسكا وقعد واي وبعد كاشكي وضع حيسا يس اوكي لعقتي waxay sameeyeen markay lacagtii dibtay booliskii waxa markaa u cadaaday inaan kan maxamedka hadalka uu loo yimi uu yiri naagtii horaan la sheekaysan jiray mid aan wax naga dhaxeeyay ba hadda ila soo xiriiray ugu tiri ninkayga doonaya inaan ka takhaluso oo aan dilo waxaad samaysaa ii hel qof ninkayga dila oo criminal ah dadka wax dilaaga ah booliskii waxay sameeyeen way codkii muuqaalkii arkeen ninkii rumaystaan لكن أنا حسيتي لبيتهم ترى يقعطي anyway لبيتهم كي بام لبيتهم كي دولار لبيتهم كي كون $1 بوليسكي مركي أركان يجي بس دياري وحس ميان مديجا متكمدة ولين مدوقة بوليس مدوقة متكمدة بي أكتر كسر دقيقة وحيدين أنا واحد نقانسا نيكي محمد كيني أو هذا سولو كل ما داليا ورني حتى وكان نيكي وانكو هلاي ninkana hadhowto ninka ka takhalusaya ninkan markaad ninkan madowey la dabanayo waa police marka asagu arrintan oo dhan wuxuu iska dhigi doonaa dee midkii ka takhalusi lahaa waana police gabadhii ninkii baa lagu yeeray wuxuu yiri maxamed wuxuu yiri kaas kii waa la isla xiriiray ninkii markaa ninkan madow baa waxa la yiri la kulan adiguna waxaad samaysaa gaariga markaa isla hadlaysaan qorshaha dhan ku sheegayso sida doonayso ninkeeda loo dilo iyo waxa markaad ka hadlaysaan oo dhan gaariga aan doonaynaa inaad isla kulantaan gaarigana way sidii leeyahay sameeyeen waxay ku xidheen kamaradihi iyo codkii wixii dhan hayo ninkii bay la kulantay waxay tiri aan waxaan doonayaa ninkeyga in maxay ahayd sida ugu dhaqso badan markaas uu weydiiyaa wuxuu ku yiraahdaa makadaba miyaad doonaysaa ninkaaga inaad dishid yes 100% sure baan ahay boqolkiiba boqol no waa go-aanan gaaray ma doonayo inaan ka noqdo adigu i rumayso gabadhan markaa waxay doonayaan booliisku markaa waxay doonayaan hadalkeeda waxaas oo dhan waxay doonayaan sida hadhowta maaragtay maxkamadda ay yiraahdaan eeg waxaas ku hadlaysay anyway gabadhii ninkii uu ku celceliyay waxay tiri haa waa iga dhab hay wuxuu yiri anigu public ma kuma sameyn karo ninkan anigu waa risky wayaan kuma dili kale public laakiin waxaad samaysaa furaha gurigaaga ii dhiib markaasay weerara naxda waxay tiri kan weerara naxda waxay tiri ninkan gabigiisaba dilaaga ah sidaan guriga furaha aan ugu dhiibaa armo aniga hadhowta ka takhalusa oo kale way yara baqday marka may dooneen plankaas inuu guriga yimaado oo ka dhigo kale in maartay guriga uu soo dhacay oo uu jabsanayo ama xaday waxaasa marka hadhowtana sidoo laba xabad maartay madaxa uga takhalusada ninkeeda Michael okay anigu waxaan sameeyay gym kan tagaya xilligaas kaalay guriga marka albaaban furamaysin laakiin waxa ku tahay markii dambe albaabka xagga dambe baan dhaafaya oo furan yahay ana waan baxaya gym kan tagaya waxay sameysay marka ninkan waxay islahayd ninkan dilaaga ah kulay deynir fiican maaha dahabkeedii qaaliga ahaa wixii magaranaysaa laha qiimo laha bay inta urursatay bashan dadku gurato markaas dadii ay gym kala tagaysay bay u qaad ninkii ninkan loo police ma ahay waxaas oo riwaayad iyada waxaas loo dhigaya markasta oo ay ninka la kulmayso markasta la hadlayso ninka police ka laakiin dilaaga ay iyada u haysato waa la duubayaa wax kasta si dimaar ka dhawto maxkamadda la keenay lagu cadeeyo iyadu gymka way iska dhigtay inay tagayso hay ninkii guriga uu galay ninkii markaa wuxuu tagay Michael buu qolka ugu galay isaga markaa iyo police kale la socdo markaa iyada they make sure inay de maqan tahay ninka waxa lagu yiri war meesha ka kac marka ninkan uu qalan yahay show markaas la soo qalo dhakhtarku ka yimid guriga jifa
police baa usoo galo ninkii baa waxa lagu yiri wareex ka kax meesha ka kax xaaskaaga waxay doonaysaa inay ku disho waxaan oo dhan anagaan og waa na rumayso ninkii waa uu qaadan waayay waa ninka iska dabcan oo caloosha laga soo qalo halkaas iska jiifaa oo gurigiisa de kama waqasna wuxuu leeyahay waa maxay de ninkii choice ma laha uu raacay booliiskii uu raacay way kaxeeyeen waxay iyaguna sameeyeen riwaayad bay dhigeen oo ninkii oo maxay meyd ah oo diig loo marmariyay booliiska markaa sameynaya waxaas baa sawir laga qaaday si hadhowta loo tuso la yiraahdo de ninkii waa kan oo dhintay iyadana riwaayad loo dhigaya iyadana riwaayad bay dhigaysaa markaa waxaan ku yidhi adduunyo ninkii dhamaa gurigii markii laga kaxeeyey wixii bay sameeyeen booliiskii waxay sameeyeen maartay qof marka lagu dilo meel dil qof dee la dilo waxyaabaha maartay ay booliiska ku xidhxidhaan waa kuna filmaanta ku aragtay omanaya waxyeelo lagu xidhxidhayaa booliiska booliis badan gawaari badan baa imanaya ambulance baa imanaya kuwa maartay journalista dee tviyada ka socda kamarada wixii oo dhan bay keensadeen marka waxaa kamid ah program cops la yiraahdo oo TV-ga dadka laga tuso waxa real maaragtay waxa dhabta dhaca isla markaas laga tuso baa iyaguna jooga oo wuxuu dhaxlo duubi doona gabadha waxa la duubi doona macahadooda marka loo sheegayo marka booliisku waxaan oo dhan way sii og yihiin in waxaan oo dhan waa ogaad waa qorsho la sii sameeyay booliisku waxay sameeyeen wixii oo dhan bay ka dhigeen de sidii maartay sidii inuu ninkii dhab ah oo kale inuu dhintay gabadhii markay jimka ku maqan tahay waxay leedahay khalaas de maalintii ugu dambeysay maartay ninkan gabigiisaba araggiisa iyo wixiisa araggiisa guriga markaa yada ku qoran wax kasta iyada hadhowta iyada la wareegaysa saasay umalaynaysaa booliiskii markay kaxeeyeen ninkii iyadii bay telefoon direen waxay ku yidhahdeen gabadhii war baan ku haynaa si degdeg hadda kaalay waxa weeyaan arrin ku saabsan ninkaaga waa soo carartay markay gaarigeeda kasoo degayso miyaa markay meesha imanayso kamarad baa markaa lagu hayaa kamarad baa lagu hayaa marka waa la arkayaa like si dhabaad u arkaysaa iyadiyo booliiska ay u sheegayaan markaas cod baa ku xidhan marka kamaradu booliisku kamarad bay hayaan reactionkeeda ugu horeeya si caadi loo arkaya haddaa youtube gashaan hadhowto meelo badan kulli waa idinku soo qori doonaa waa arkaysaan gabadhii waxaa la yidhi horta kaale wax ku saabsan ninkaaga baa xaafadda waxbaa ka dhacay telefoonka kuguma sheegino laakiin waxaad samaysaa hadda kaale iyadoo bash labay gurigii timi oo booliis iyo marka iyadu waxay is leedahay khalaas de ku dhacantay qof adiga ku ogaanaya ma jirto halkiiba booliiskii la hadlay markaasuu yiri wax ka xunahay ninkaaga Michael waxbaa ku dhacay wuu dhintay kabadh dhulkiisa dhacday waxaan ku yidhi fake teeth yes saasi kuleen saas ma lahanaan isleed waa idin yara dhisay haddee gabadhii halkiibay wahin qabsatay booliiskii waxaan kawar booliiska meesha taagan oo dhan iyagii macaa saas leeyihiin taagano markaas wuxuu leeyahay booliiska markaa video maxaa aragtaan booliiskan u sheegay ay ku dul ooyeyso isaga macaa iska yar hayaan marka waxay sii doonaysa waxa la daqiiqad xoog masalada waaweyn maanta waa u baahanahay oo hin been iska keenaysaa marka waaba gariiraysaa markaasay ku leedahay alla ninkii markaasaa talayaab kale isla markiiba waxay weydiinaysaa eegeygii baa guriga ku jira eegeygii ma nabad qabaa markaasiyagii baa markiiba marka aad dhegeysanaysaa documentary maaragtay waxay yidhahdeen waxa yaabnay ninkeediiba hadda u sheegnaa ku nidhi ninkaagii maaragtay waa la toogtay laba xabadoodba madaxa laga dhuftay wuu dhintay markaasi waxay weydiinaysaa eygeygii suu yahay anyway waa runta hadduu eyga waaba ilaah baa abuurtay laakiin haddana waxa leeyahay iyagii baa la yaabay waxaa la yidhi halkiiba riwaayad dhigtay halkii baa la qaaday waa la kaxeeyey hinteedii waxaa loo daayay in oyda wixii o dhan halkiiba waxaa la geeyey meeshii questionka maaragtay saldhigii booliiska la geeyey waxaa la yidhi hay maxaa se wuxuu jiraan inta hore waa laga guradeen hay maxaa waa la wareystay maxaa ka dhexeeyey maxaa sidan waad iska garanaysaa qofka maaragtay qofkaaga marka la diro dadka inta badan waxaa laga shakiyaa dadka maaragtay familiga baa la wareysanaya marka ugu horeysa qofkii ugu dambeeyey qofka la degan oo kale baa qofkaas la weydiinaya la wareysanaya booliiskaas sameeya anyway cabaar markii la wareystay oo ay iska dhigtay dee naag gabigeedu hadda maaragtay ninkeedii dhintay oo baroortay oo naagta gabigeedu gabadh waxaan ku yidhi murugeysan markay iska dhigtay
waxaa loo soo geliyay ninkii madoobaa ma garanaysaa booliiska ahaa ee haddana dee noqonayay kii ninkeeda dilay oo xidhan oo bay booliiskii iyada u keeneen marka ilaa weli riwaayadii way la wadaan qolkiiba halkii fadhidaada waxay is leedahay yaa kaa saaray meesha on dayno markaas kiiba leemaysaa ninkan ma garanaysaa hore mise tiri weligii ma arkinba waxay noocani no I've never seen him no ma garanayo oo weligaa lama hadlin weligaa lama muuqaalkiisa maad arkin maayo weligii ma arkin isaguna wuxuu iska dhigay kii mid dambiilo markaas la yidhi gurigaaga muu joogin waayo markaan nima gurigaaga xagga isaga kasoo baxayay hore umaad arkan ninkan may wax allaale wax ninkan aan ku garan karo ma jirto markaas isla markii baa loo sheegay soo ninka wuxuu ku yidhi maya caawja ka seexanaysa ka I didn't do anything waxay ku walato waxa ma sameyn markii isla markii baa loo cadeeyay misalay waxaad sameeyso dhan waan ognahay wax kasta waa la duubay hadal kasta waa laga hayaa muuqaal kasta waa laga hayaa ninkana wax weeyaan nin police weeyaan waan ognahay waxaad qorsheynayso dhan caawa jeelkaad seexan doontaa halkii haddana hooyo kala qabsatay marka ogaada marka booliisku ay qabanayaan oo xagga damaartay bahashi labada gacmood la xiri doonayo waxaas markay dibadda soo baxayso hadda videogu waad arkaysaa YouTube ku jiro waa la duubayaa weli riwaayad sii wadaa waxay leedahay aadi weli waxa ma sameyn black and white waa la arkaa gabadhii waa la xiray maxkamadii baa u bilaabantay wixii oo dhan marka hadda xasuusta sheekadan waxay dhacday 10 sano ka hor marka maxkamadii markii la bilaabantay wixii oo dhan baa lagu cadeeyay waxa lagu xukumay 20 sano xarig ah 20 sano ka xarig waxaad moodaysaa inay saako ay iska aamusto no ma aamusin waxay tiri halay furo mid kale oo waa cadaalad darro maartay xaq darro ay ku dhacday hada khalad baa dhacay marka dadkii iyada difaacayay waxay ka dalbadeen in haddana maxkamaddu ay dib u furto case-kan oo dhan oo waxay tiri sheekada si khalad ah laga fahmay sheekadani aniga iyo Maxamed iyo ninkan had Michaelka aan dhimanta doonaysa disho waxaan oo dhan saga ka dambeeyay wuxuu doonayay inaan noqono dad caan ah oo on YouTube caan ku noqono oo videogaasi aan duubno oo sheeko waxay la soo baxdaan maskaxda galin reality TV show bay doonaysa inaan sameeyno baan doonay marka waxaan oo dhan aniga meesha ku khasaaray laakiin labadaas nin way la ogaayeen waxaan oo dhan aan sameynayno dhan wax weeyaan ninka Michael baa ka dambeeyay anigana way khiyaameeyeen waxaan doonaynaa inaan caan ku noqono YouTube dadkii waa cajiib bay noqotay sidee waxaan u dhici kartaa ninkii baa la wareystay wuxuu yidhi anigu weligay waxaan kuma shaqalihi haddana anyway waa loo ogolaaday in haddana dib loo furo maxkamadii inay gabadhii maxkamadii labaad haddana dib loo furay waxaa lagu xukumay markii dambe 16 sano baa lagu xukumay wixii oo dhan dambeen bay noqotay waxaa la yidhi waxaad ku hadlaysid nimankan aad leedahay sheekadan way igula jireen iyo waxaas kuma jiraan alaa kulli xaal gabadhii maanta weli way xiran tahay dee ninkiina saad ogtiin wuu nool yahay Michael wuu nool yahay laakiin waxa weeyaan xuquuq like gabadhii uu markii sidaa u galay uu xaaskiisa furay dawaan u malaynayaaba tii meel bay joogtaa leedahay hay qoslisaa mooleenaya xaaskiisii hore sheekadani waxaan ku yiri waa sheekooyinka noocan oo kale way badan yihiin qof baa ku soo tashanaya doorkii hore wataan ka sheekiyay nin gabdhaha ka saxiixi jiray life insurance sidoo hadhowto maaragtay markuu dilo oo ay lacag helo dee dumarkana waa tanna waxayba damacdayba noloshiisa inay la wareegtaba ay ka takhaluso so tana waxay ku tusaysaa qof aadan maaragtay noloshiisa si fiican u garanaya ku degdegin wax guur iyo waxyaabahaas maaragtay maanta dadkan waxaan sameynaya waa in la noolnahay diin iyo diin la'aanba dad badan ba waxay doonaan ku dhaqaaqa gabadha aragtaan gabadhan waxaa la yidhahdaa Dalia Maxamed koley aabaheed baa muslim ahaa wiilkan kalena ninkan markaa badbaadiyay ee booliiska u tagay ninka horta
ninka meesha ugu sharafta fiican dee waa waxyaan ninkan maxamed la yiraahdo ee booliska u tagay. Anyway videogan ku dheereen waxaad samaysaan haddii aad nagu cusub tahay videoyadan noocan oo kale aad jeceshahay subscribe saar insha allah kulan dambe wiiga dambe waa mid kale idin soo wadaa insha allah baryahan waa iska yara dadaalanahay laakiin waxaan isku dayayaa inaan idin soo dadaalo insha allah marka asxaabta markaas aad joogtiin waan idin wada salaamayaa kulligiin waxaan idin rajeynayaa bashbash iyo barwaaqo assalaamu calaykum.